السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامج كفنكي سوغانتا iyo toddobaad cusub martida garabkayga taagan oo barnaamijka fankii suugaanta ee TV-ga Universal toddobaadkan martida ku ah waa Saciid Daawud Cali Masxaf Saciid ka waran dareenkaaga aad iyo aad ayuu u fiican yahay dareenkayga maasha Allah aad baan u qanacsanahay Saciid dib dheer aan soo marnay meesha aan ku dooro inaan barnaamijka ku qabano toddobaadkan ka waran wallahi runtii aad aan uga helay maxaa yeelay inta badan barnaamijyada waxaa lagu qaban jiray meel studio ama meel la fadhiyo ama meel laakiin barnaamijkan iyo quruxdan iyo anagu hawada qaadanayna aadan kaaga mahad celinaya waa tahay aad u masanta sidoo kale fanka halkay ka soo gashay iyo goorta bilaawda iyo toona kuma weydiin dadku ku wada yaqaanaan inaad tahay reer family oo fanaan ah hase yeeshee waqtiga saxda ah oo aad adiga dhalatay goormay ahayd aniga waxaan dhashay 1979 waxaad ka mid tahay fanaaniinta hawlada qaranka ee Waabari hase yeeshee waxa aad lagu tiriyaa inaad tahay fanaaniinta aad u labiskooda aad u qurxoon yahay labisida xiratiga ku dooro runtii وسؤالات ونكسن وكما تسنتهاي لبسك مركي لو فيريو مركات فن نقشو أما فن مركي اللي يرادو فن وقروح يلبس انتبه اوكي مركا أما يرانتي واسك جعلا إن أد ولبستو واسك صباحي لكن مركا فنك قصي بيري oo aan u fiirsado qaabka fanaaniinta dunida hadii la jaan qaadayo kale ninka fanaanka labisku xiranay waa inuu ka duwanaado dadka caadiga ah ma aha qofka caadiga inuu la mid ahaado waxa la rabaa in ay ka muuqato heebada fanka markuu soo istaago qofkan sawa ee qofkan fanaan way okay waa ina u qalantaa waxa markaas aad ku jirto aad iyo aad marka waa dooqayga aad baan u jecelahay marka nin qurux badan hada aragtana aan kula kaftamay xaskiisa ka dambaysa hadda waxa leedahay xaaskayga ka dambaysa aad oo maasantaas Saciid Daawud Cali Masxaf Saciid waxa taa qof aaba ah marka fanka laga soo tago ma jiraan caruurtaada kugu dayda fanka qaabka heesaa u qaado kale ama waxyaabo kala duwan hadii aan lahayn ma jiraan qof kamid ah caruurtaada kugu dayda caruurtayda horta waa yar yihiin haye oo ana iska yar mogtay rag daadooda horta ma sheegaan leeyahay aad u qarsadaan marka caruurtayda waa yar yihiin wali ma gaarin haye in macnaha hadda ifan iyo waxa isaga daydaan laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa abees ilmo yar ma dhasho haye ma fahantay laaziman wax waa ku jiraan oo kugu dayda fanka marka la waan ku soo dhaweynaynaa waliba waa yar yihiin laakiin hor adaa lagu soo dhaweey haddana waxa leedahay caruurta ku soo iyagana waa soo dhaw maxay qabanayaan way aabada dufanaa awowgada dufanaa aabahood fanaan noqday iyaga meel kale loo diri maayo waa garta ima saxaasa jecesha inaad guursatid سؤالي راك ويدنا هاني horta ninka ragga wuxuu ilaahay u banay afar inuu guursado diinta u banaysay waa sharciga diinta islaamka uu ilaahay u dhigay ninka ragga ilaa afar inuu guursado aad iyo aad xigmadana ku jirta wuxuu ilaahay u sameeyay sidaasna waa qofkii muslimnimada ay ku jirtaa garan kara laakiin dumarkiyow ilaa hadda maba ogola iyaga haye adaa marka hadda ka soo qaada lacala haye معناها نن صدق ناق قبل إن لجوء أفري واسك أقولان كرتا باشا سواء فريق بعد مكتة من هل ناق قبل إن لجوء الله بيم أقولاني هذه ولا هرت دوخة جسدا معها معها صومها واكا مرك دوخة عمل لي خياس أن لما ناك نحمل كره حمر هذا متجوجو حال كيس إلى هو فهمنا هل ها ساسك في عنتها هذا أمها حاجة ولي برامج كنا يعني كوجود جرنا قيبي كفتن كيان دي بقول صلاة وننا سعيدو هذه ما تحل دولة لجودي بالله ضدوينها محاد جعلها هذنا أصلا سوى إسلام باهدا سيا ودنك كجرتا معناه هذا ودنك وصانا مسمرك ودنك نبض نقضه حلي قلنا تاجين هذا ما هذا واحد مقابلين ودنك أنا حلنا مقابلين حلنا ومقابلين ضدك دبعت أنت سلايك هيسو حلك ودنك خاذا إنك أو واحد بدن تشك فول دونا وين مرك أنا ما بتش عليه سنولي وحل يراد بينا قبته وحلا حلك هاي جورجيك بس المها إسلامتا وقرت هذه لو دي لا فكرة لقى بهنيا يطلع حد دوينها فري لهاد dadkan waxaan dhihi lahaa dadku waxay ku noolaadaan nabad aadiya qofka bini aadamka hadduu nabad haysto waxa kale uu heli karaa ma fahantay waa nabadda
iyo caafimaadka wax ugu horeeya uu qof bini'aadanka ku noolaan karo nabaddana waxay ila tahay waxay aaminsan yihiin dowladda nabad samaysa ama dad baa nabad sameeya nabadda iyo waddanka waxaa toosista waa shacabka meel dhisan ama waddan dhisan hadda aragta shacabkiisaa dhistay marka shacabka un baan dhihi lahaa intaad tooba tiraahdaan waddankiina dhista oo isku toosa waa gartay wax adduunyada markii la arko oo waxaa jira qofka uu karaasana uu necab yahay adduunka maxaa u necabta horta rabsho ugu xun rabsho dhibaato haa meeshay doonta ha ka timaadee un qofka bini'aadanka oo noolaha waxa dhiba ama qofka uu dhibsan karo waa problemka waa gartay problemka aad u nibcanay ani inta labis oo rag ay xirtaan kalarka aad u jeceshaa waxay fiisaa ani laba midab aan jeclahay kan hadda waaba ku taaganaya waa ujeedaa cadaanka haa cadaanka iyo waxaan jeclahay gaduudka fursadaada ugu dambeysay maxaa dadka dhihi lahayd wallaahi dad wax dhihiis horta ani dad wax dhihiis waa ogtahay waa soo daali waa ka soo heesay waa ka soo gabiyey waa si walba aan soo niray wax walba waa soo sheegnay ummaddaan ilaahay ha toosiyo ilaahay ha isu toosiyo annaga hawsheenaan ka wadanaynaa waxa waaye siduu ilaahay ugu talagalay noqonaysaa ilaahay dhibka ha naga dulqaado laakiin waa gartay iyo isku dawridka barnaamijkan oo aad iyo aad aan ugu mahadcelinayo cabdixamiid karasaay anigu waxaan xaaji maxamed ayaa barnaamijka halkan idinkala socodsiinaysa is arag dambe nabadgelyo